دوركني وعد ويدوركني وعد ويدوركني وعد بالغو دوكسدا وعد بالغو ديرسدا وعد بالكو دداليسه أخويان كاغا دورو تدوينو عد كاغا سي تدوينو عد كاغا سي وعد ويدوركني وعد ويدوركني وعد ويدوركني xisbiga cadaaladda iyo daryeelka UCID oo maalintii lixaad ee wareegga ololaha doorashooyinka Soomaaliland furay ayaa wuxuu cudurdiisa taageero ku soo bandhigay deegaano badan oo hoos yimaada gobolka Togdheer oo ay ka mid ahaayeen Geedihan, Iskudon, Nasiye, Doqoshay, Balidhig iyo qaar kale badan iyadoo deegaanadaasina taageerayaasha kula dabaaldegeen mas'uuliyiin tiro badan oo uu hogaaminayo gudoomiyaha xisbiga UCID ee gobolka Togdheer Saad Cabdi boos xogayaha duulista iyo hawada Bashiir Xamari xogayaha beeraha Sulb Ismaaciil xogayaha warshadaha Yuusuf Jaamac iyo waliba afayeenka xisbiga UCID ee gobolka Togdheer Sakariya Cabdikariin iyo saraakiil xilal kala duwan haya waxaana deegaanadaasi taageerayaasha UCID jiibta iyo jaanta iskula rogeen heestooda caanka ah ee UCID weeye doorkani soo codayn ma UCID oo codaynayna UCID waawayaan inaanu cod iyo cudud midaysan xisbiga UCIDno ayaynu halkan isugu nimi anagoo banaanay hawd baga xaaraynay anagoo banaanay hawd baga xaaraynay ayuun baa yiri biilanbu basha guursaday oo salaanta lagu ma baqayle halkii baan baw ka soo yiri degmadu waa degmo ballaaran waa degmo xisbiga laga taageersan yahay miidiyaha laga ogoliyay xisbigan iyo gudoomiyihiisa iyo musharaxiisa taageero aad iyo aad baa loo hayaa mujaahid Faysal Cali Waraabe ama gudoomiyaha UCID laga taabacsan yahay oo aad iyo aad looga jecel yahay layskama jeclaanina waxa lagu jeclaaday waxqabad baa lagu jeclaaday gabagabadii waxaa taageerayaasha deegaanadaasi kala duwan la hadlay mas'uuliyiintii xisbiga UCID ee uu ugu horeeyay gudoomiyaha xisbiga UCID ee gobolka Togdheer Saad Cabdi boos iyo xogayaasha duulista beeraha iyo warshadaha iyo waliba afayeenka runtii waxa halka ka muuqata wax la oran karo xisbigii UCID galabta looma kala hadhin waxaan halka ka cadeynayaa waxa la sheegaa xisbiyadu maalinta ololaha leeyihiin lacag fara badan bay soo farraqaan si ay dadka ugu soo xodxotaan oo ay u keenaan laakiin maanta dadka halka tuban iyo dadka UCID taageersan wallahi ka tahay qof shilin la siiyay inuu ku jirin ujeedadu waa maxay dadka Soomaaliland damiirkooda nool waxa nool dadnimadooda nool ma aha dad lagu sasaban karo lacag dad lagu sasaban karo maaha waxaanu ku maqnay danta qaranka inta labada xisbiye kale ay ololaha xudxudashada iyo hadii laba ku rooyay campaign-ka qabiilka ku jireen anagu waxaanu ka shaqaynaynay dan guud oo maxay tahay Soomaaliland sababtoo wadaniyad wax dhaafsiisan anagu kama hadallo reerna kama hadallo Soomaaliland oo dhan baanu matalaa waxaan leeyahay xisbigani waa xisbiga wada garanaysaan sida horeba uga dhawaajiseen ee idinku ha sheegteen injineer Faysal Cali Waraabe waxaan u malaynayaa iyo xisbiga UCID inaydaan cid kale ku doorsan doonin reer Beledhigo waaw xisbiga wadani Cabdiraxmaan Ciro iyo gaaban baan ka oranayaa ma dareemayaan Soomaaliland ma dareemayso saddexda loo wade Soomaaliland ma dareemayso saddexda loo wade shicibkana duduuco xamar dulge adna doolarkii farmaajo kugu daldalay dibadaha la qabo haddii Ilaahay nagu guuleeyo waxa barnaamijkeega ku xusan in garoomada degmooyinka gobolada iyo tuulooyinka dalka laga dhigo ama laga dhiso heerarka koobaad labaad ee kooxaha waxaana ballana in barnaamijkeega ay ku xusan tahay hirgelinta barnaamijyada dib u dejinta ee deegaanada Maxbuub Xuseen Dalmar shabakada caalamiga ee Dalmar News gudaha magaalada Burco